asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu. halkani waa golo podcast. halkani waxaa maanta marti uga ah barnaamijkan oo ila jooga dr muumin. saad u taqaanaan waa magacyo badan yahay dr sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha jaamacadda islaamiga ah ee jigjiga. dr soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. حاجة علي أبوان علي بس علي دانتو محانا ترى مقاعد هذا وان كنا وهي قول ميديا وان كنا وهي وما هتنتهين. أكرمكم الله وأسعدكم. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa ood ku dirtana waa free. allah ku barakeeyo sheekh. barnaamijkan rabaa inaan bilaabano. barnaamijkan waxaan rabaa inaan su-aala badan maanta kugu weydiiyo. waxaan doonayaa intaanan barnaamijka guda gelin inaad bal inoo furto حديث آيات القرآن يا نوقف تسيء بركوب إن شاء الله. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وجهرين وحنم هذا علينا يا إلهي سبحانه وتعالى. أمضان مرول بين سجل أمان عليه. مرول بين سجل لهم هذا عليه. مرول بين سجل لامانه. سببت نمعذ وجوين أي هاي سنة أو ما أنت نمعذ إسلام كأي إيمانك. isaga ayayna siiyey isaga ayaan ugu galaday marka waanu mahad celinaynaa kun iyo kow jeer iyo in ka badanba waanu mahad celinaynaa mar labaadka waxaan runtii si gaar ah ugu mahad celinayaa gole podcast Haji Ali iyo teamkiisa asxaabtiisa aad baan ugu mahad celinayaa samaha iyo wanaaga runtii ay ummadda u hayaan wacyigelinta ay bulshada u hayaan ay u soo gudbinayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka labaad waxaan leeyahay runtii bulshada iyo daawadayaasha oo codkaygani gaari doono aan u ducayna marka hore dhammaanteen gole podcast in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo midka ummadda nacfiga iyo samaha u soo jiida waxaad ogtihiin nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas alla dadka wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka anfaca dadka wax tara idan waxaan aaminsanahay mashruuca uu hayo Xaaji Cali iyo tiimkiisa Abwaan Cali iyo tiimkiisu inuu yahay nafci bulshada adeegeeda wax badan ka taraya akhlaaqiyadkeeda adabiyaadkeeda dhaqankeeda idan waan u ducaynaynaa golahan inuu noqdo golahana qaada ummadda qaybta uu kaga aadan yahay iyo dhinacu kaga aadan yahay ka soo baxa waa u ducaynaynaa marka koowaad mar labaadka walaalahay waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan aan kaalmaysano kuna dadaalno cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada ayaa ah khayru zaad yani sahayda ugu wanaagsan ee qof bani aadamihii uu qaataa waa cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala allana wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ka sahay dhigta cabsidayda aniga cabsidayda ka sahay dhigta culimadu markay ka hadlayaan cabsidu waa maxay cabsidu waa maxay عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيا وحوي دي سؤال أبي بن كعب صحابي اللي ورن شري مركز وحكوري عبسدو وامحي وحكوري عبسدو مع عبسي بدونيسا عبسيدا إلهي بدونيسا إنا كوش يغو وحد كسوق دابوري سيدا عديقو عقاقا وعن كبحدنين وكسو هقاقي طريق أما ودو قد حبدني أي يالان سيبا قدحها بهاشن قعندada la yiraahdo ama gocandada la yiraahdo ku soo hagaagay waanad cagaagan tahay maxaad samayn lahayd waxa uu yiri waxaan isku day lahaa inaan meelba meesha aan ku badbaadayo suul la meel aan dhigaya ha noqotee inaan dhigo oo aan aad isaga dhawro haddii ay bannaan tahay meel aan suul dhigaya inaan suul ka dhigo aniga oo cagta inteeda kala kor u haya inaan sidaa sameeyo bas khalaas cabsida ilaahay waa taas buuri macnaheedu waa maxay cabsida ilaahay waa inaad iska ilaaliso sida aad qodaxda isaga ilaalinayso wixii uu ka xaraan yeelay ee maxaarimtiisa ahayd inaad iska ilaaliso inaad u dhawaato ama aad ku dhacdo idan waxaan leeyahay bulshada daawanaysa aan ku dadaalo dhammaanteen cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kastoo joogtaana golo podcast barbaar kac halkii la doonaya gaadh inta ay la dhaha khayr allah ku say jazakallah sheekh
su-aalahayga aan ku bilaabo sheekh doctor maxamuudow maxay tahay sababta ugu muhiimsan ee loo asaasay jaamacaddan islaamiga ee jigjiga bal noo faahfaahay aniga iyo bulshada si aan u ogaano. طيب علي الجامعة الإسلامية في جigjiga horta تقريبا waxaa la aasaasay hadda muddo sanad iyo barka hore sanadkii hore 2025 bishii February baa la aasaasay jaamacaddan. sababtay ku aasaasantay waxay ahayd waxa aad la socotaan ama wada ogtihiin muddooyinkii ugu dambeeyey ama dowladdan hadda jirta ee uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed deegaankeenana uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa dowladdii xukuumaddii ka horeysay oo kala duwaneyd oo muddo badan dalka haysatay waxay samaysay wax aanay samayn jirin xukuumadihii ka horeeyay oo ah inay kala irdhayso ama kala fogeyso diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah oo ah dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan ama dalka guud ahaanba degan. waa la kala irdheeyey, waa la kala fogeeyey, waa la kala cabsiiyey ilaa qofka ay ka muuqato astaan ama muuqaal diimeed uu ka muuqdo si gaara target looga dhigto loo beegsado. taasi waxay keensatay inuu wadankii ay ku yaraato barashada culumta sharciga ah oo dadku ay daneeyaan maadiga iyo waxyaabo la mid ah. calow maadiga laftiisa in la bartaa waa qayb muhiima laakiin lagama gaarin isaga laftiisa maadaama oo ay ahayd Soomaalidu waxay tiraahdaa maxaan ku raahdaa shimbiri qoor qabasho biyo kuma cabto, yani in lagu dirqiyo biyo kuma cabto, maadaama oo ahayd wax dirqi lagu keenayay dadkii sidii la doonayay maadiga laftiisii ugamay biyo gaarin, ugamay gun gaarin. marka waxay noqdeen diintoodiina laga kaxeeyay, maadigiina kamay gun gaarin, dabeedna dad bulsho meel dhexe ka lulata oo dhaqankii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii wanaagsaneed wax badan lagala dagaalamay. xukuumaddani haddii ay timid waxay samaysay dib u celin, waxay samaysay in dadka ay ku soo celiso, ku soo dhaweyso halkii ay asalka u lahaayeen, una ogolaatay in duruustii macaahidii la dhigo, in madaaristii la furo, in waxbarashadii islaamiga ahayd sida ahayd loo barto, in iyadoo akaademik ah oo mucaasir ah laysu geeyo. kadib waxaa bilowday isla markiiba madaaris quraan, macaahid shareeca ah, waxyaabo badan baa bilowday. macaahidii waa la qalin jabiyey. okay, hadduu qofkii dugsi sare ka qalin jabiyo wuxuu filanayaa halkee tegaysaa. idan qofku markuu 12aad ka baxo dugsiga sare uu ka qalin jabiyo waxaa jira jaamacado dalkii ka buuxa oo maadi lagu baranayo. idan haddaba qofkii dhigiisa ahaa ee dugsiga sare ee maxadka islaamiga ka baxay waxay noqotay halkee buu tegayaa. ilaa wuxuu u baahan yahay wixiisii inuu sii wado oo sii upgrade gareeyo. tii waxay kaliftay in yar oo dhalinyaradii ka mid ihi da'yartii soo baxaysa ka mid ah oo waliba siiba ragga u badan oo dumarka aan ahayn inay jaamacado dalka dibaddiisa ah ay xareeyaan oo wax ka doonaan oo ku silcaan, marmarka qaarkood ku helaan, marmarna waayaan, muddo ka daba wareegaan. halkaasi markay arrintii marayso waxaanu ka fikirnay runtii annaga oo ah aqoon-yahan u dhashay deegaanka oo dadkii wadankooda iyo laga eriyey ee la kala irdheeyey ah inaan ka fikirno in wadanka loo sameeyo, deegaanka loo sameeyo jaamacadda islaamiga laga furo. sababta ay ku timid in jaamacadda islaamiga la furaa waxay ahayd macaahidii soo dhameeya ardaydii halkeebay tegayaan, madax meel ka sarreyso la salaaxa ma jirtee waa jaamacadda la keeno. jaamacadda islaamiga ahayd sababtay ku furantay taasay ahayd. waxaana furay dad uunu dhashay deegaanka oo aqoon-yahan ah. dadku cali halkaa waan saxayaa kelmad khaldan baa jirto oo yidhaahdaan aqoon-yahanka iyo culimada bay yidhaahdaan. sax maaha, aqoon-yahanku waa culimada, aqoon-yahan kaleba ma jiro. aqoon-yahanku waa culimada. marka in la yidhaahdo aqoon-yahanka iyo culimada halkaa waan saxayaa, in badanna way igu soo noqontaa kelmadaasi. marka aqoon-yahankii u dhashay deegaanka ee culimada ahaa ayaa waxay arkeen inay baahidaasi taagan tahay. saa darteed baanu ku furnay. waxaanan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay dabooli doonto baahi badan, isla haddana ay dabooshay baahi badan oo bulshadu ay qabeen. runtii maantana lagaga nastay wax badan oo dadku ay meelo kale u hanqaltaagi lahaayeen ama u ordi lahaayeen lagaga nastay ayaa walan insha allahu tacaala taasaa keentay in jaamacadda aan furno. waa maxay himilada aad rabtaan inay gaadho jaamacaddu ama aad ka leedihiin 10 sano ee soo socda? waad mahadsan tahay, allah ku barakeeyo. dabcan ma jiro shay la qabtaa oo aan lahayn goals ama yool ama hadaf aan laga lahayn ma jiro. annaga muhiimadayada ugu weyne waxay tahay
jaamacaddani 10 sano ee soo socda idamka ilaaha insha allahu tacaala inay soo saarto dad lagu kalsoon yahay la aamini karo dhinac kastaba hadday tahay dhinaca aqoonta diiniga hadday tahay khidmada iyo adeega bulshada hadday tahay yani noloshan cusub ee maanta dunidu ay gashay ee waqtigan mucaasirka la galay la jaanqaadkeeda haddii ay tahay hogaaminta alqiyaada alxasana haddii ay tahay qofku inuu adeegsado yani talentiga awoodaha ilaahay ku keediyo qofku inuu adeegsado dad isku kalsoon ishuba bulshada wax badan ka badbaadin kara qabyaaladda qaadka qurunka oo dhan ka badbaadin kara musuqmaasuqa wax isdabamarinta been abuurka ka badbaadin kara isu furi kara bulshada wacyi sax ah dad maanta waad aragtay xaaji cali oo dunida waxyaabo badan baa la isku khaldaa diinteenii waxyaabo badan baa shubah baa lagu soo arooriyaa marmarka qaarkood waad aragtay oo bulshadeenii siday u joogto shiica iska taageertaa marmarka qaarkood fikir khaldan oo meel kale laga soo waariday oo diintii loo ekeeyey oo la subaansobay oo maanta waxa aan odhan karo waa waxa koonfur baabi'iyey ayaa diinteenii lasoo dhexgeliya idan dad research fiican ka gaari kara oo waxaa ka hufi kara oo diintii saxda ahayd aynu haysanay ee naqaanay ee kusoo ababnay haysta in aanu soo saarno ummadana lagu aamini karo ayaa himiladayada iyo hankayagu yahay idinka ilaah insha allahu tacaala jaamacado badan baa ka jira dalka marka jaamacaddani maxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale ee dalka ka jira ama gobolka صح طبعا horta jaamacado badan dalka waa ka jiraan jaamacadaha ka jiraan wadanka waxay u badan yihiin jaamacada maadiya maadiga in la bartaa waan soo dhaweynaya waa qayb kamida waxbarashada iyo aqoonta kamida laakiin qofku inuu maadi qalalan bartaa oo maadi kaliya bartaa macnaheedu ma aha inuu yahay qof aqoon sita ama aqoon leh oo marka laga hadlayo culimada islaamku markay ka waramayaan qofka aqoonyahan waa kuma markay culimada islaamku qeexayaan waa qofka diinta iyo sunnada yaqaan qofkan kale jaahil caamadu galaya ilaahay uu PhD caafimaad asito ilaahay uu PhD dhaqaalaha asito marka laga hadlayo aqoonyahan culimada islaamku ay qeexayaan waa qofka sunnada iyo kitaabka alla yaqaan anagu jaamacadahan waxaanu kaga duwanahay baan oran karaa dhowr qodobka ugu muhiimsan waxa weeye waxa aan wadnaa aqoontii iyo akhlaaqdii oo wada socda waxa aan wadnaa oo aan dadka baraynaa waxa loo yaqaano qofka bini aadamkihi inuu naftiisa anfaco bulshada iyo mujtamacana wax ku celiyo waxa aanu kaga duwanahay oo aan is oran karaa waan wadnaa midaynta inaan midayno ummadeennan ay kala fogeysay qabyaaladda iyo qurunka iyo qoqobka uu kala fogeeyay inaan midayno waa waxyaabo badan oo oran karo waan kaga duwanahay jaamacadaha maanta wadanka ka jira sidoo kale waxaan wadnaa dad culimo ah oo soo saari doona culamaa mustaqbalka dhow ama future-ka dhow soo saari doona buxuuth ama research laga qoray mushkiladaha cawaa'iqda faraha badan ee bulshadeena ku xeeran xaaji cali sidaad ogtahay mooyaane badanaaba jaamacadaha maadiga ah qofka ka baxa waxaa laga yaabaa kaftana iga ahaato saaxiibaday halka ayaanan waxba kusii leexine in isagoo jaamacad dhameeyey oo laga yaaba inuu masterate sito in uu ku xisaabtamo qofku yani wax yar oo noloshiisa ama seenaho meelo kale uu ka fikiro oo orod iyo xafiis dowladeed uu ku xisaabtamo laakiin xaaji cali qofku markuu quraanka dhameeyay madrasada quraanka ka baxo cala aqal hadaan wax kala qaban madrasad buu furtaa madrasada uu furtay dadkii waxbuu baraa marka hore reer buu sameeyaayo isla markiiba waxbuu soo kordhiyaa naftiisu ku filaadaa isla mar ahaantaaba reerkii dib wax ugu celiya laakiin waxaa laga yaabaa nin jaamacad ka baxay sida haddaba in badan ina haysataa jaamacad ka baxay oo jaamacad maadiya ka baxay in weli la sii dabahaya ama gurigii uu ku nool yahay oo subaxiina uu ka laho suuqa yimaado maqaxyaha fadhiisto laakiin ninkaasi markuu ugu yaraado wuxuu samaynayaa inuu noloshiisii aanu mujtamaca culays ku noqonay isagu inuu wax ku soo kordhiyo isku dayo marka waa waxyaabahan ka diiniga bartay ha waa waxyaabahan isleeyahay waa kaga duwanahay arrinta iyada sidee ayay jaamacaddu isugu dheelitiraysaa culumta diiniga ah iyo culumtan casriga ee dadku maadiga sidee ayay isugu dheelitiraysaa kolka asaalatan xaaji cali inaad ogtahay in kale mooyaane horta diinteenu mar walba waa mucaasir iyadaaba casriya yani aayadda tusaale ahaan
nabigu sala allahu calayhi wasalam maalintii uu dhintay uu geeriyooday cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu abubakar lama joogin cumar baa la joogay oo tiimkii la joogaya dabeed cumar wuu dhaartay wuxuu yihi wallaahi ninka yidhahda nebi maxamed wuu dhintay seeftaasaan kurka kaga goynaya abubakar baa yimi abubakar markii uu yimi gurigii nebigu yaallay buu galay sala allahu calayhi wasalam intuu ka qaaday gu'ii ku dadnaabuu dhabanka ka dhunkaday wuu arkay markaa dee waa nin weyn wuu yaqaanaa intuu soo baxay buu khudbeeyey markuu khudbeeyey baa wuxuu yidhi qofkii ilaahay caabudayey alla waa nolyahay qofkii nebi maxamed caabudayeyna nebi maxamed waa geeriyooday waa dhintay waxaan u akhriyey aayad qur'aan ah oo ku jirta suuratu ali cimraan markuu aayaddaa akhriyey ayuu cumar waxa uu yidhi waxa aan mooday bal hadda u fiirso islaamku intuu jiray intuu cumar joogay inay aayaddani hadda inay soo degtay baan mooday buu yidhi macnaheedu maxaa laga daliishanayaa diinta islaamku mar kasta ay taagantay horta waa mucaasir casrigay la jaan qaadaysaaba marxaladdaa la marayo ayay la jaan qaadaysaa waxaan maanta inagu cusub shay kastoo inagu cusubi islaamku marxalad baa jirta ilahi subxana wa yakhluqu maa laa taclamuun alla ilahi subxana watacaala wuxuu ka sii warramay wax kasta oo duniyadan imanaya waxay noqon doonaan iyo siday yihiin aan ku soo noqdo su-aasha ah sideebaad isula jaan qaadsiinaysaan annagu marka horeba waxaan leenahay horta wixii casriga ahaa baabanu haynaaba isaga laftiisiba waxaanu dadka barayno ayaaba casrigii ah laakiin haddii dhinaca maadiga muqaarana lagu sameeyo oo lagu celiyo waxa aanu wadnaa qofka bini aadamkiihi kullama uu qofku maskaxiyan u furfurto oo uu noqdo qof wax baadhi kara oo wax baadi dooni kara oo maxaa kaa maqan odhan kara qofkaasi isaga ahi wuxuu helayaa albaabo badan oo laga yaabo maanta dad badan inay cidhiidhi kaga jiraan marka annagu waxaan leenahay maadaama oo diintii islaamka aanu barayna dadkii barayno iyada oo maadigii aanu baraynana maadiga laftiisa kama mandhin oo maadiga laftiisa qayb baa ku jirtaa maadigii aanu baraynana aanu mashruub kaga dhignay in qayb ka mid ahoo la cabsiiyey islaamkii uu ku jiro qofku halkaasaabuu mucaasir ku yahay maadigii baad yar cabsiiseen maadigii ayaanu baraynaa qayb islaamkii ana waanu cabsiinay oo waxa la yiraahdo waad cabsiiseen waxa jira waxaan mooday kale waad isku yar waanu cabsiinay waanu sharaabnay waxa jira waxa la yiraahdo islaamiyatul macrifa islaamiyatul macrifa aqoonta in la islaamiyeeyo dhakhtarkii baanu islaamiyeynaynaa injineerkii baanu islaamiyeynaynaa siyaasigii baanu islaamiyeynaynaa yani macnaheedu waa maxay dadku in ay bartaan inaanay ahayn oo keliya qofku inuu dhinaca taban wax ka bartay dhinaca toganna wax ka arki karo isagoo marka qaanuunkii shariicadii ku dabaqahay nacam hadda jaamacadda kuliyadaheeda waxaa ka mid ah kuliyada shariica wal qaanuun lowgii baanu dadka baraynaa lowgii oo qaanuunkii baanu dadka baraynaa maca dalika maxaanu ku dabaqaynaa nusuustii shareecada iyo siday ahaayeen iyo sidii wax loo xukumi jiray hadda la soco qaanuunka aanu baraynaa laftiisu waxaa ka mid ah qaanuunkan maxkamadaha hadda dalka wax lagu maamulayo waxaanu ka tusaynaa jihada waxaa laga yaabaa shay waliba waxaa la yidhaha waa mindi laba af leh waa duu xadayn laba af bay leedahay qofku inuu dhinacna adeegsan karo dhinacaasana adeegsan karo qaanuunka qodobkii qaanuunka ahaa inuu weji kale oo islaamig ah marin karo oo aanu halkaasoo keliya ku qalajin ee wejiyo badan ka eegi karo maadaama qofkii aanu u tababarayno qofkan inuu research sameeyo oo wax baaro marka waxaad leedahay waxa haddaan meesha ku hayno waa wixii casriga ahaayeed ka hadlaysana maadiga ahayd baan xoogaa yar sharaab baanu siinaynaa waanu yar sharaabinaynaa waa sharaab baanu ka dhigayna collection macaan baanu ka soo saaraynaa dabadeedna ardayda ka qalin jabisaa jaamacaddani sidee doonaysaan inay bulshada ugu adeegta berrito adeega ay bixin doonaan muxuu noqon doonaa horta caliyow ilaahay baa subxana watacaala bani aadamka isagaa qaybiyey annagu qofka ma samayna ilaahay baa sameeya ilaahayna subxana watacaala qofka sibuu u sameeya annagu adeeggii baanu qofka tusaynaa oo baraynaa idan waxaa laga yaabaa qofka bani aadamka qofna adeegga intii loogu talagalay inuu ka adeeg uu yani ku shaqeeyo qofna dee waa abuurta ilaahay inuu ka gaabiyo waxaa kaloo jira waxuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam wakullun muyasarun lima khuliqa lah qof walba waxaa loo samaynayaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah idinku shaqeeya yani xadiidkaasi wuxuu ku yimi waxaa la weydiiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam maadaama oo jannadii iyo naartii qofku isagoo uurka hooyadii loo soo qoray oo kolleyba ay looxul maxfuudka ku qoran tahay
oo qofkaasi waa ahlu naar iyo qofkaasi waa ahlu janna horey loo qoray maxaan cibaadadan iyo hawshan iyo ka qabanayna xaaji cali oo halkaan aan ka faa'iidaystay dhalinyaro badan baa maanta waxay ku dawaqeen markii dunidii si kale isu bedeshay ayaa waxay yidhaahdeen maxaynu cibaadadeenu cibaadaysanaynaa ilaahay maxay u taraysaa ilaahay maxay u kordhinaysaa maxay u qabanaysaa maxaan ka cibaadaysanaynaa idan yani maadaama oo qofkii laba qorayba horey baa loo weydiiyey nabiga sala allahu alayh wasalam maadaama oo qofkan janno iyo naar looba qoray maxaan ka qabanaynaa marka nabigu wuxuu yihi icmaluu idinku shaqeeya qof walba waxaa loo fududaynayaa waddadii isaga loo abuuray baa ilahay u fududaynaya yani haddaad ahlu janno tahay saad doontaba fisqi iyo xumaan iyo mushkilad iyo balaayo ugu dhaco aakhirkaaga waxaa lagugu soo duwaya jidkii wanaagsanaa idan adigu shaqee macnaheedu markaa waxaan uga jeedaa annagu dadka aanu soo saarayna ee aanu wadaynaa waxaanu ku shubaynaa oo aanu mimari ahaan ugu shubaynaa ka buuxinaynaa ummadda adeegeeda iyo bulshadeeda iyo samaanteedu siday ku jirto laakiin annagu qofkii de ma nihin steerinkii ma hayno ma odhanayno ma nihin annagu waxaanu nahay daali tuse waxbaanu tusaynaa waxbaanu u sheegaynaa ummadda sida loogu shaqeeyo mudnaanta ay leedahay tanaan hadda kuu sheegaya axabu nnaasi ila allahi anfacuhum licibaadih anfacuhum linnaas yani dadka qofka ugu wanaagsani waa qofka ummadda bulshada wax ku soo celiya ee bulshada waxtar u sameeya marka waxaan isleeyahay dadka aanu soo saari doonaa idamka ilaaha insha allahu tacaala muddo yaroo kooban kadib waan rajaynayaa in aad maalin maalmaha ka midana arki doonto dadkii iyo midhihii aanu beernay ee soo saarnay oo bulshada ka sumad iyo astaan duwan waan rajaynayaa idamka ilaah insha allahu tacaala waxaanan isleeyahay dadka ugu fiican bay noqonayaan idamka ilaah insha allahu tacaala biidni illaahi kariim waa runtaa qofka waxbaa la bari sida ugu camal falayna ilaahay baa garanaya waa saas dr maxamuudow maanta dhalinyaradu waxay wajahayaan caqabado aad u badan nacam dunidan sax maxaad u aragtaa adigu khatarta ugu badan ee haysata dhalinyarta muslimiinta maanta runtii horta waa sidaad sheegtay oo maanta waxaa jira runtii taxadiyaad iyo caqabado aad iyo aad u fara badan oo waktigan aynu noolahay soo kordhay aniga waxaan u arkaa khatarta ugu badan ee maanta dhallinyaradeenu ay wajahayaan baraha bulshada waxyaabahan ku jira maxaan ku dhahdaa runtii social media waa khatarta ugu culus ee dhallinyaradeenu maanta ay wajahayaan aragtidayda taasi waxay lumisay fikirkii qofku habkii tognaa ee u fikiri lahaa waxay lumisay xidhiirkii ka dhaxeeyey waalidka iyo ilmaha waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee u lumin kartaa xidhiirka ka dhaxeeya waalidka iyo ilmaha hooyadu iyada ayaa barta ilmaha afka iyo luuqadda uu ku hadlayo hooyadu iyadaa barta la soco waxaa dhici karta qayb bulshada ka mida wuu ka helaa qofku bulshada qayb ka mida mujtamaca qayb ka mida wuu ka helaa luuqadda laakiin asal ahaan hooyadaa barta laakiin markay hooyadii moobilkan ku mashquulsan tahay ama ay hawshan iyada lafteeda ay ku mashquulshay aabbihiina uu camal tegay aabbihiina uu fiidkii yimaado isagoo isaga laftiisu daalan dabadeedna isaga laftiisu uu is yidhaahdo fariimo iyo bal waxoogaa ka jawaab ilmihii dhexdu ka baxay olready dhexdu ka baxay bal iska daa waxaa laga yaabaa ilmihii hooyadu ay u heesi jirtay waxyaabo badan ku celcelin jirtay waxyaabo badan dhaqanka faamiliga reerka qoysku siduu yahay ay bari jirtay inay iskaga aamusiiso bahalkii u dhiibto telefoonkii ay ku aamusiso u dhiibto dabadeedna ilmihii wacyi ahaanba xataa uu u lumo marka social mediahu waa khatarta ugu culus ee dhallinyaradeenu ay wajahayaan waxaanan odhan karaa waalidku maanta nooli looma baahna inuu u noolaado waalidkii shalay noolaa siduu noolaa oo ahayd muquuni ilmahaaga awood wax ku bar isaga khasab maaha maanta waxaa loo baahan yahay wakhtigan la joogo waalidku inuu ka fikiro noloshan hadda la maraya waaqican la maraya iyo kii shalay isku mid maaha kan siduu isaga laftiisu u fahmi lahaa ulana jaan qaadi lahaa walidaalika in badan baa waxaan idhaahdaa waxaa u baahan inaynu tababaro iyo seminaaro badan u qabanno
hooyooyinka iyo waalidka sidii la isu waafajin lahaa isdiidooyinka faraha badan ee maanta ku soo baxaya ubadkeenna iyo waqtiga la nool yahay marka anigu waxaan isleeyahay khatarta ugu badani haddaan kusoo dhawaado jawaabtoo kooban waa social mediaha ama waxyaabahan baraha bulshada ku jira waa khatarta ugu culus ee dhallinyaradeennu wajahayaan ilxaad iyo diin la-aan bay keentay tahriib iyo carar bay keentay qofkii inuu dad kale afkaar kale inuu qol cidlaa intuu la galo maantaba uu dhegaysto dad kale afkaartooda iyo waxaynaan dhaqan u lahaan jirin ayaa qofkii lagu shubayaa deedna qofkii ilmaha yarna waa weel qofka dhallinyaradii waa weel maran soomaalidu waxay tidhahdaa biyo socdo oo meel godan bay isugu tagaan ilmaha yari haddaanu wax celiyo oo kabxi u noqda aanu helin briik wax u noqda haddaanu helin dee dabcan uu tallaabaya jaranjarada halkii loogu talagalay marka mashruuca ilaahay ha inaga soo gaadho dadkeennuna wacyi badan ilaahay subxana watacaala ha u soo fududeeyo waa taasaan anigu isleeyahay kol hadday sidaa tahay sheekh doctor maxamudow sidee haddaba maadaama caqabado badan social media bulshadii ku hayo sidee dadkiina ay u badan yihiin dhalinyaradu maanta qurbaha ay aada loogu badan yahay dad badan degan yihiin sidee xaaladaa jirtay miidiyahu maanta saamaynta xoogga la leeyahay qofka muslimkaa sidee diintiisa u ilaashan karaa allah yibaarik fiik jazaak allah khayr aniga waxaan isleeyahay horta dhowr qodob baa in la sameeyaa waa muhiim horta marka hore waxaan isleeyahay culimadu waxay ka gaabiyeen arrinta ku saabsan adeegsiga baraha bulshada sababtoo ah qofku godka uu ku jiro haddaadan ugu tegin dhufayska uu isagu galay haddaadan kaga dabagelin dee dacwad iyaa u geynaya qolkaa madow buu la fadhiyaa iPad baa loo dhiibay mobile iPhone baa loo dhiibay Samsung baa loo dhiibay godkaasuu ka jiraa sharaab kalaa ku socda haddaadan irbadaadii dhinaca kale ka soo gelin oo aanu markaa qofka bini aadamkii bal calal aqal bal aanu arag weliba inaga gaar ahaan cali oo allah ku barakeeye dadkeena Soomaaliyeed shalay يعني waxyaabaha muuqata waxa kamid ah qofka hadii la yiraahdo qofkaasi waa Soomaali looma baahna in la yiraahdo ma muslim ba yani ma Soomaali aad tiri mujarrad Soomaali aad tiri ba shahaadada islaamnimada siisayba marka macnaheedu maxay ka dhigan tahay inaga dadkeenu durba way u nugul yihiin way u jajaban yihiin inay qaataan waanada ay culimadu sheegayaan marka waxaan leeyahay waxyaabaha aan isleeyahay wax waa lagu daweyn karaa waa in ay culimadu ka daba galaan godka dadkii lala galay ee lagu xidhay oo baraha bulshada ay soo galaan wa ficlan culimo badan oo hadda soo gashayna way jirtaa TikTok waa in laga daba tagaa YouTube waa in laga daba tagaa baraha bulshada qofkan waa in lagu soo daweeyaa oo laga daba tagaa qodobka labaadna waxaan isleeyahay waa fariin message maanta kaga faa'iideysanayo hooyooyinka hooyadu waa qofka ugu badan ee ilmaha ay ismutaan geedkana goormaa la abqaalaa oo toostoosintiisa laga shaqeeyaa waa intuu yar yahay ilmuhu inta uu yar yahay waxa aad ku soo abqaasho ee aad ku soo bacarimiso unbuu aakhirka la weynaadaayoo noqdaa waxaan odhan lahaa hooyooyinku iyagaa dhibka ugu badan ku dhacaa culayska ugu badan iyagu ku dhacaa caruurta inta ugu badan iyagaa wada jooga waxaan leeyahay ubadka ha loo duceeyo maxaan uga jeedaa caliyow waad aragtay hooyadu waxa laga yaabaa iyada oo aan isdhaadayn Soomaalidu waxay tiraahdaa dheriga karka maxaa ka keenay iyo kulaylka culaysku markuu hooyadii ka bato ayaa waxay oran eray ay af Soomaali ahaan afkeeda u jilicsanaaday u fududaaday lagu sii qaad in kaari kugu dhacday bay oran bilcagsi maxay oran kartaa ya alla ku hagaaji hada la soco wacanaan alla ku hagaaji ya lagu toosi erayadii bay ku bedelaysaa erayadii meesha waa ka saaraysa lana soco ducada waalidku waliba gaar ahaan hooyooyinku samada waa furanta inta badan saacada jira aan ducada laba celinba waalidka ducadiisu waa khatar markiiba in la aqbalaa idan dad badan oo maanta aynu la yaabanahay oo meelahan marayo aynu la yaabanahay waa dad habaaran qof habaar la soo kalahay oo la soo habaaray ayaynu maanta leenahay u taaglaanay marka waxaan leeyahay waalidka waa waxyaabaha wax lagu daweyn karo lagu toosin karo waalidku ubadka siiba hooyadu ubadka ha u ducayso alla ku islaaxi u fiirso nimankan carabta waxyaabaha cajiibka ay ku yihiin laba shayba way inaga duwan yihiin oo cajiib ay ku yihiin ninka carabka ahi wax yar buu qaadanaya mushahar yar wax yar buu helaya alxamdulillah ku badan alxamdulillah ala kulli xaal buu koonaya sidoo kale hadaaka allah ku hanuuniyo tii aynu dhaqankii qaadano waa dhaqankii islaamka ah qofkii hal yiraahdo alla ku hanuuni alla ku hagaaji ya markaysa waxyaabo badan waa waxyaabaha canaan ahaan u dhadhe waana canaan ahaan waa dagaalaysa alla ku hagaajiye lafiis waa dagaal dhinac waa ka dagaal dhinacna waa ka duco
marka waxaan leeyahay xataa haddaynu ku qoranno halku dhig ka dhigano oo wadooyinka lagu qoro oo gidaarada guriga kijada albaabkeeda lagu qoro oo si qofkii bani aadamka inta badan hadda wax la akhriyahay loo xasuusiyo wax badan bay noqon lahayd marka waxyaabahan isleeyahay dhalinyarada maanta waa waxyaabaha lagaga hortagi karo culimadu inay ka daba tagaan oo halkaa aan lagu dayn ee baraha bulshada loo adeegsado idinka laftiinu waa qayb badan baa ka qayb qaadan kartaan culimada u yeerkeeda tognaanta hadalka wanaagsan oo soo gudbisaan dadkan la isugu yeero oo umadeenni aynu u wada gurmano cali wala soco culimadoo kaliya diinta ka mas'uulma culimadoo kaliyatii diinta ka mas'uulma diinta waynu wada leenahay marka waa qof waliba intiisa inuu dhinaciisa ka gurmada oo dhantii loo gurmada khayr allah ku sii waxaan soo xasuustay hadda erayadaasi aad tiri darbiyada lagu qoro oo si mar walba ishu u qabato sax waxaan u safray markaan hadda Somaliland joogay buurta sheekh marka buuraha sheekh wada aragtay oo waa la laabatooyin marka la fuulahay jidka asaas waxaan wadada ku arkaynay tasbiix qalbi lagu xasuusinaya sax astaghfirullah subxaan allahi wabixamdihi subxaan allah oo boorar ku qoran markaad goolad saa u gashaba yani lagu xasuusinayo marka way fiican tahay dabcaantii anagoo markaa dharano mar allah war tasbiixsaa ku qoran allahu akbar baa ku qoran war astaghfirullah waan tasbiixsanayna sidoo kale inaga halkeena waa in hadda waa taas kale jidkeena halka hadda marka laga dhaadhigayo buurtan kaaraamardho kale iyo in lagu qoro intaasoo kale waa wax aad u cajiiba maasha allah ya ma arkaysaa oo qofku markuu soo korayana allahu akbar la yidhaahdo markuu sii daadegayana subxaan allah loogu qoro marka uu hoos uga dhaadhacana astaghfirullah loogu qoro marka uu kor u soo baxay buurtiisa ka soo jeexana alxamdulillah loogu qoro arrin fiican wey arrin fiican wey dhalinyarada badankood maanta waa run social media baan ku jirnaa dhalinyarada badankood maanta waxaad moodaa inay maskaxdooda ka saareen oo qaarkoodba laga yaaba ayagoo life up ku jiraan war diinta waqti uma hayna naga leexda arrimahaasi maxaa dhalinyarta laga wacyi gargaabaas leedahay wallahi su-aasha kooban waxay tahay waxaan isleeyahay waa waxyaabaha uu inagu keenay ghazul fikriga in maskaxda laynaga qabsaday diintu maanta marxalada ay ka fududahay ma jirto barashadeedu adiga oo aan meelba tegin baa maanta qofka bini aadamkii qof kasta oo inaga mida bulshada maanta waxaan odhan karaa yani boqolkiiba 95 dadku maanta baraha bulshada way ku jiraan oo isticmaalaan qof waliba telefoon buu sitaa ama iPad buu sitaa ama computer buu leeyahay qof waliba khad iyo internet buu isticmaalaya qofku si fudud buu asaasiyaadka diinta ku baran karaa waa un wax la iska dhaadhiciyay oo aan maskaxda ku jirin cali waan ku xasuusiyo waxa jirta xilligii salafka waxa la sheegaa qof dumar oo taariikhdeeda la soo qaato siyarka ku jirta qof dumar oo diinta ku bilowday oo islaamkaba ku soo gashay iyadoo 70 jira ya qof dumar oo islaamkaba ku soo gashay iyadoo 70 jira 70 jir bay ku soo gashay islaamkaba ku soo ku islaamtayba diintii quraankii bay ku bilowday 70 jir iyadoo 80 jirana way dhamaysay quraankii waana ku dhimatay inaga maxay inagu badan carabkii baa iga weynaaday oo hadda waan ma garanaysaa hadda carabkaba soo laabi kari maayo oo carabkii baa i jabay waxyaabaha aan aadka uga naxo waxa kamid ah erayadaas waxaan xasuustaa quraanka waxa ku jirta ilaahay subxaanahu wa ta'aala fi suurati al-mursalaat wa idha qila lahum irka'u la yarka'un dadkii dunida aan ku tukan jirin qiyaamaha marka la yimaado waxa la oranayaa waxyaabo yar oo fudud baa la weydiinayaa bal si la idin shay baaro ilaa qofkii wuxuu ku doodayaa ma ogtahay ilaahay waan soo cibaadaystay waa kan maxaan ku raahdaa deedna markhaati baa la oranaya hebel baa may cadawaygu ahaayo markhaatigaygaba ma galo idan tijaabeer baa isaga qofkii isaga la soo diraya waxaan masaas ahaa bal waa yahay Soomaad soo tukan jirin ha bal adigu rukuuc ila rukuuc waa rukuuc Sooma ma bar rukuuci karayo qofkii gig waa bistaagayaaba haddii kale uu rukuuc jirayna imtixaankii uu baasayaa dhag uu rukuucay xubnihiisiba mid walba amar qaadanaysa xubnihiisiba amar isagoo aan yani isagoo isdirin ayaa xubintiiba isdiraysa halkuu ka rukuuci jiray baa rukuucaysa hadduuna rukuuci jirina dhag way istaagaysaa ama se noo salaadiisu ay qorshe kala ahayd oo sax baanay ahayn way istaagaysaa yani dadkeenan oranaya carabkii baa iga weynaaday maskaxdii baa iga weynaatay oo hadda maba laabi karayo waa fikrad khaldan oo laynaga dhaadhiciyay dhalinyaradana maanta si fudud bay diinta u baran karaan aad bay u fududahay meel walba way taala iyadoo bilaashaba meel walba lagu haya iyadoo oo aan yani shay lagaaga iibinayn bay meel walba taala idan qofku si fudud buu ku baran karaa diinta maanta waa fikrad khaldan qofku inuu yiraahdo diintii ma baran karo qofka doonaya inuu noqdo hogaamiye sax ah oo muslima maxaa looga baahan yahay wallahi waa su'aalaha aan isleeyahay in badan maskaxdayda ka guuxa hogaamiye sax ah waxaa noqon kara qofka sifooyinkan soo socda laga helo
xaaji cali waan dib ku yeedhi celiye nabi muuse calayhi salaatu wasalaam markii tolkii ay eryeen intuu dee dardiga lagu sameeyey ee laga saaray uu ka hijrooday meeshiisii wuxuu maray tegey meel gabdho xoolo wata oo bannaan meel bannaan xoolihii ku celceshanaya dadkiina ay xoolihii waraabsanayaan maxaa idinku dhacay buu su-aal buu weydiiyey su-aashu weydiiyey waxay ahayd maxaad xoolihiina waraabsan weydeen waxay idhahdeen aabbahayana waa nin gaboobay oo da' waa nabiy ilaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam cidna lamaanu dhalan oo dadkaas intay fulayaan baanu sugaynaa awooddiisii iyo baawarkiisii kartidiisii ku jirtay buu adeegsaday dabadeedna iyo aqoontiisii wuu waraabiyey xoolihii waxay idhahdeen ilaawa waalidka ayaanu kuu geynaynaa ina raac si aanu mushqaayad ujro kuu siino nabiy ilaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam hablihii markii ay u ammaanayeen nebi muuse bal hadda u fiirso 2 shay bay soo qaateen waxay dhahdeen aabbow ninkan isaga ahi duruuftaasuu naga soo saaray meel adag buu naga soo saaray ninkan shaqaale inooga dhig shaqaalihii bay marka caddeeyeen maxaad ku doorateen shaqaalihii bay caddeeyeen waxay idhaahdeen ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin 2 sifay siiyeen qof shaqaale laga dhigto ama hawl loo dirto ama la adeegsado waxa ugu wanaagsani waxa weeye qofka 2 sifo laga helo kow waa inuu yahay qof aamin ah oo xil lagu aamini karo ummadda hanan kara yani mas-uuliyaddeeda iyo xilkeeda hanan kara adduunkeeda hanan kara diinteeda iyo dadnimadeeda hanan kara mar labaadka waa inuu yahay qof awooddiisa adeegsan kara yani titleka iyo baawarka uu leeyahay qof adeegsan kara waa inuu yahay qof baa laga yaabaa maanta inuu mas-uul yahay mas-uuliyaddiisa sidii loogu talagalay uma adeegsanayo intii ay xuduudiisu siinaysay xataa ma gaari karo idan waxaa leeyahay qofka hogaamiye saxa noqon karaa waa qofka laga helo kow aqoon weliba aqoontaasi waa inay aqoon diineedna ku jirtaa waa inaan aqoon maadiyo oo keliya noqon waa inuu aqoon diineed wax ka leeyahay waa inuu aqoon diineed leeyahay sida oo kale waa inuu yahay qof aamin ah oo aan lagu aqoonin laalaab iyo musuq iyo istabamarin qodobka saddexaadna waa inuu yahay qof awoodda uu leeyahay adeegsan kara oo siday tahay wax u qaban kara go-aan gaari kara oo fulin leh wax gaari kara idan hogaamiyaha saxdihi waa qofka sidoo oo kale hogaamiyaha saxdihi waa qofka og duruufta mujtamaca uu la nool yahay ku xiran maxaa ku tusaysaa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu markii uu mas'uulka ahaa muxuu sameyn jiray habeenkii uu bixi jiray keligii buu guura gali jiray dabeedna wuxuu soo dhageysan jiray guryaha xaafadaha danyarta buu soo dhageysan jiray muxuu soo dhageysanayaa ka buka ka baahan ka cabasha jirto ayuu soo dhageysanayaa ilaa waqtiyada kamida uu ku soo beegmay haweeney caruurtii ay ka ooyayaan oo intay biyo kulul oo khalliya dabka saartay walaaqaysa caruurtiina ay ooyayaan leeyihiin hooyo cuntadana sii hooyadaas waxay samahayso laakiin maxay ku sabaysaa caruurta inay biyo karinayso cunto walaaqayso dabeedna Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu intuu big yiri oo uu saxaabiga la socday ka haystay oo uu bakhaarkii furtay ayuu soo qaaday ceesh iyo cunto waliba saxaabigii la socday baadhi madaxweynihii muslimiinta ana qaadaya maya buuli dambigeyga maad maanta qiyaamad u qaadi doontaa buuli kani waa dambigeygii isagaa tuurta u soo ritay wuu yimi wuu kariyey wuu u bisleeyey caruurtii buu siiyey wuu dhargiyey markaasaa wuxuu weliba dee yani waxay leedahay qofka dareenku markuu qofku ka bato waxay leedahay yani madaxweynihii muslimiinta maanta adaa nooga wanaagsan la soco ma garanayso inuu isagii sababta oo ah adigu xaaladayda iyo duruuftayda baad ka warqabtaa idan waxa laga doonayaa qofka hogaanka ahi ummadda inuu ka warhayo keeda jiricdasan keeda baahan halka ay bugtadu jirto halka ay duruuftu jirto halka uu taagan yahay adeega diineed ee ummaddu halkuu marayo qofka la socda kaasoo kale ayaa noqon kara anigu sidaan isleeyahay hogaamiyaha dhabta ah ee ummadda hogaamin kara maxay tahay doorka ay ku leedahay jaamacaddu xalinta khilaafaadka صح jaamacaddu maadaama oo sida aan kuu sheegay ay tahay jaamacaddii islaamiga ah jaamacadda islaamiga
waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo aasaasay bayba ka mid tahay inay ka qayb qaadato xalinta khilaafaadka waddanka ka jira. waxaana tusaale kugu soo qaadanaya Xaaji Caliyow, waqti dhaweyd waxaa jiray mashaakil badan oo deegaankeena ka dhacayay, dagaalo iyo mashaakil dhacayay, sida tusaalahaan gobolka Doollo oo kale, in qoysas walaalayihii waxaan macno lahayn isku jireen, isku hardiyeen. الجامعة الإسلامية في جigjiga qayb bay ka mid ahay dadkii xuluusha iyo xalka ka qayb galay ee sidii dadka walaalaha ahaa murankaas iyo khilaafka dhex yaala looga qaadi lahaa. waxyaabaha ay jaamaca islaamiya qabato waxaa ka mid ah si khilaafka iyo mashaakilka ummadda uga dhex baxo in la qabto tababaro, dadka laga wacyigeliyo dadku inay yihiin dad walaalo ah, dad ay midaysay diin, dad ay midaysay soomaalinimo, dad ay midaysay dal, dad uu mideeyey deegaan, dad uu mideeyey dowlad, dada iyagu caalamka dunida maanta aynu haysanaa kama fikirto oo dadku kama fikiraan kana reehbel iyo kana reehbel, waxay ka fikiraan qofkana danba qofkana danina midaysay, qofkanu mabda iyo aragtina midaysay bay caalamku ka fikiraan. inagu laakiin waxa laga yaabaa qofkii inaad mabda iyo aragti aad ku kala duwantihiin oo aad kula fogtihiin, laakiin wax ka weyn oo aqoonsnimo inaad ilaashanaysaan. idan jaamaca alislaamiya waxay isku dayeysaa inay noqoto muraayad. waxaa laga wanaagsan weydiiso muraayad maxaa looga jeedaa. waxaa jira xadiidka nabigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay almu'minu mir'ata akhiih, qofka mu'minkiihi ama qofka muslimka ahi waa qofka muslimka ah muraayadiisa. in badan bay dadku is weydiiyaan sidee buu muraayadu noqon karaa. muraayadda Xaaji Cali oo markaad u timaadee aad isku eegto arrimo badan baad ka faa'iidaa. kow, wixii khaldanaa ee ku saarnaa ee wejigaaga ku yaalay dhag aarbay ku tusaa, waad iska qaadaa. mar labaadka markay ay ku tusayso kuma canaanato, niyo heerde waa maxaa kaasi ah, waase maalin walba waxunbaa kugu yaalle ma tiraahdo oo kuguma qayliso, cod dheerna kuguma tusto, cod gaabanna kuguma tusto, muuqaal bay kugu tustaa keliya. haddaad maalin labaad iyo saddexaad iyo afraad ku soo noqoto jasim waa isku mid, sidii unbay kuu tustaa, kulama hadasho, kuguma ceebayso, kuma canaanato. war maalin walba adoo kale dheer baad ii timaadaay maxaa kaasi ah kuma tiraahdo. taa waxaa ka sii daran qofka kaa dambeeye ee kuu yimaada muraadii u yimaada marka aad 2-3 maalmood ku soo noqoto, warniyo kan inkaar qabaha hebel ama hebla maalin walba waa kala dhiman yahay, waa kala dheeriyo wuxun baan u sheegnaaye bal wuxuu sheego toosiya ma tiraahdo, nothing kuma dacweyso, kaama cadhooto, kaama daasho. qofka muslimkii qofka kale walaalkiisa ceebtiisa iyo nusxigiisa sidaas kale danihiisa saas kale uga shaqeeya mana sheego. idan jaamaca alislaamiya waxay ka shaqaynaysaa ummadda in ay ugu shaqayso si honestly ah oo daacadnimo leh oo wanaag ah oo samaan ah oo sinaan ah iyo in cadaalad lagu wada noolaado. dr maxamuudow, jaamacaddu ma deegaanka kaliya waa asaasan tahay mise meel walba waa looga iman karaa oo ardaydu meel walba way ka iman karaan oo dadka dibadda xitaa waxbaad bartaan? aad baan runtii uga helayaa su-aashaas Xaaji Cali oo maya. aljaamica alislaamiya fi jigjiga waa jaamacaddii deegaanka, goobta ay ku taalo ayaa magaalada jigjiga ah, waana jaamacaddii deegaanka. laakiin macnaheedu maaha in deegaanka ay ka furan tahay in dadka deegaanka degan oo keliya ay wax ka baran karaan. waxaana taa kugu daliila hadda jaamacadda waxaa ku jirta qayb distance learning ama tacliim can bucd waxa la yidhaahdo, fogaan dhigashada ama fogaan barashada waxa la yidhaahda qayb ka mida baa ka mid ah jaamacadda. tusaale ahaan hadda ardayda jaamacaddu waxay joogaan Canada, waxay joogaan Maraykan, waxay joogaan Ireland, waxay joogaan Faransiiska, waxay joogaan Sacuudiga, waxay joogaan yani xukuumada deegaankeena dadka xuduudaha joogo oo dhan, ama Somaliland ama Puntland ama maxaan ku rahdaa Xamardhe ama Nairobi dhe dhammaan way joogaan. taa macnaheedu waxa weeye fogaan arag bay ku dhigtaan. fogaan arag bay ku dhigtaan. waxaa kaloo jira dad badan oo ka yimi deegaanada hadda aan sheegayo oo joogo jaamacadda dhigta. wa fil mustaqbal waxaabay u socotaa jaamacaddu hadda dabcan sidii adiguba aad soo aragtay waxay ku jirtaa hadda guri weyn oo kira ah, dhulkeedii dhismaa ku soconaya oo hadda dayrkii baa la xidhay. mustaqbalka waxay u socotaa jaamacaddu inay yeelato qayb sakan ah oo degaan oo hurdo ah
oo meel walba caalamka looga yimaado bal iska daaye meel walba oo dunida ku saar ilaa iyo ama Afrika dhe ama Asia dhe ama yani meel walba in looga yimaado ayaa mustaqbalka u socota jaamacadu idamka ilaa insha Allah taala haddana fogaan dhigashaaba lagaga sii dhigtaayo already waaba la bilaabayba okay macallimiinta wax ka barta jaamacadda macallimiinta ardayda wax barta صح xagee wax ku soo barteen iyagu xagee ka yimaadeen Nice. heerarkooda cilmiguna waa noocee marka الله كبر كيو جامعة طبعا ودكان إثيوبيا نكون والله جامعة هالدلك معلمين تو حكى دقيقة وحجرة دقريت إلى معلمك وهدانو قارين أنا وحبري كرن wako جامعة هرتا معلمين تيدو ومعلمين رنتي لا أوران كرا ومعلمين كهبون إني وحدقان درجات كي هايستان وحا طبعا درجة الأستاذ أما بروفيسورة وحلي هذا دكتورة إيو ماستر ماستريت يعني waa darajaadka ugu hooseeya ee jaamacadda wax ka dhiga darajada ugu hooseeya jaamacadda wax ka dhiga waa nin master ah badi macallimiinta jaamacadda wax ka dhigana waa PhD ku takhasusay nin waliba fanka laga doonayo inuu macallin ku noqdo takhasuskiisa wata haday noqoto qaar ku takhasusay shareecada haday tahay qaar ku takhasusay tarbiyada haday tahay qaar ku takhasusay maxaan ku radaa culuum sunna oo sunnada iyo culuumteeda kala duwan sida oo kale taa waxa ka sii daran dadka jaamacadda aasaasay badankoodu dhamaatood iyaguna waa sidaas oo kale waa PhD iyo master bay u badan yihiin waa rag ka soo baxay caalamul carabi ragga ugu badan ee jaamacadda wax ka dhigana waa raggii ama Suudaan wax ku soo bartay ama Sacuudiga wax ku soo bartay ayay ragga ugu badan ee jaamacadda hadda wax ka dhiga ama ragga jaamacadda mas'uuliyadeeda guud bahaya ay u badan yihiin horta markii isbedelku dhacay deegaanka dib loogu soo wada noqday horta culimo badan baa soo noqoto maqnayd Sheekh Maxamuud Dr. Maxamuud waxaad ka mid ahayd raggii maqnaa adoo xageed ku maqnayd waa su'aal muhiim ah aad iyo aadna runtii u taabanaysaa xaaji caliyow anigu waxaan ka mid ahaa dadkii dhalinyaradii markay dugsiyada dhexe dhammeeyeen u dulqaadan weyday cadaadiskii iyo dhibkii ka jiray waddanka dabeedna waddanka bannaankiisa u yaacay anigu sameel fog maan gaarin oo qurbaha loo yaqaano qurba nacas maan dhaafin badanaaba qurba nacas waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo maxaa looga jeedaayo soomaalida waxay tidhahdaa caws jiilaal waa lama huraan oo halka aad ehelka iyo dadku ay ka agdhow yihiin iyada oo Soomaali ay dadooda walaala ah oo jinsiyad ah oo ay wada tahay haddana hadba halka ehelka iyo dadku joogaani de waa qolqolkii baa la oran karaa waa qolqolkii laakiin meeshii ka baxsan ay tagtaaba si kastaba ha noqotay qof baa tahay musaafira sax وبالمناسبة halka waxaan soo qaadanayaa book la yiraahdo baan qoray oo insha Allah taala dhawaan aan soo bandhigi doono oo soo socda oo la yiraahdo su'aal soo socotana laga yaabo inaad kaga baaqan karto oo isiraahdo Maxamuud waa kuma inaad soo socoto aad kaga baaqsan doonto oo aan u bixiyay qariib waa kuma book baad ka qortay book baan ka qoray insha Allah taala aan isleeyahay dhawaan baan soo bandhigi doonaa taqriiban ilaa 4 chapter ka kooban qariib waa kuma oo aan ku soo bandhigi doono Maxamuudna waa kuma isaga laftiisu marka waxaan uga jeedaa anigu cali oo ma fogaanin badanaaba dadkan inagu xeeran ama Soomaaliya dhe ama Kenya dhe ama maxaan ku radaa inahan kama fogaanin anigu shakhsi ahaan markaan ugu badnaa imaaraadka meelahan intan baan joogay laakiin waxaan ahaa un dadkii la yiraahdo dadka la oran karo waxa uu ahaa dadkii nabadi keentayga nabadi keentay yani waddanku markuu nabad noqday dadkii u soo hiloobay ee yimi kadibna ku fikiray wixii ay soo barteen waddanka in ay wax kaga qabtaan un baan ka mid ah niyow waan kaftamaynaa Dr. Maxamuud waanu kaftami nimankiinii nabadi keentayda ee wadaadada ahaa adiga laftaada inaad ku jirto maya anigu waan sii joogay nimankaasi category baa la kala yahay hadda nimankan markii culimada ahee inta badan masaajidada gacanta ku haya ee hadda jaamacadan oo kala furay horta wax badan baad soo kordhiseen khayr Allah idin siiyo masaajidada badan baa horta deegaankii laga dhisay intuu isbedel ku dhacay walow masaajidada badan ba ay jireen haddana masaajidiyo badan oo kale ayaa soo kordhay haddana dadkiina bulshadana way soo kordho intaa masaajidana waa la buuxiyaa sida ay tahay diiniyan dee aad uma si aqaano oo waa su-aal aan doonayn naftayga inaan ka faa'iidaysto waxaa jira dad tuugsada oo masaajidada soo dhexgala waxaan arkaa inta badan masaajidada markii ay ka dhex kacaan salaada iyo wax la yiraahdo dhalinyaro qabta goon masaajidkan ma inuu leeyahay qabta in la yiraahdo qofka itkaanta la qabta la yiraahdo irida ama meeshaas oo kale
halkaa ku sug dadku maadaama salaad lagu jiro sida aan u qaatay un dadkaas haweenimo la leeyahay ma waxaa la leeyahay gudaha kama tugsan kartid waa qalad arrimo yar sidaasaan arkaa arrintaasi diiniyan waa sidee ma sax baa صح waxaan doonaya inaan ka faa'iidaysan نعم walaal horta allah ku barkay jazaak allah khayr waxaan isleeyahay asaalatan islaamku marka horeba wuxuu runtii fogeeyey ama uu manciyey ama uu diiday waxa loo yaqaana tasawulka tuugsiga qofku inuu dadku tuugsado waa la diiday asaalatan islaamku uu diiday nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay dabalo fiirso waxa uu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam la an yahtatiba ahadukum yani mid idin kamidii in uu xaaba soo gurto oo dabadeedna xaabadaa uu iibiyo oo naftiisa uu ku anfaco ayaa waxay uga khayr badan tahay inuu dadka wax weydiisto gacmaha horsado inuu dadka wax weydiisto oo uu yani gacmaha horsado sidoo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay labada gacmood gacantan wax tuugsanaysa iyo tan wax u dhiibaysa inay tan wax u dhiibaysaa mar walba khayr badan tahay sarrayso تمعني ذو محي كل ذلك وحال فوقينيا تصولك يدورسيغا يتوكسيغا وبالمناسبة هذا السدا أي تهي ويشرين ده حلقي النبي صلى الله عليه وسلم ضد باهنا أو دروفايسنا والنبي صلى الله عليه وسلم انتي ويما دين والنبي يقول انتو الصحابة الله هذا وأورنشري وريا إيقاد القاضي يهيب البعاء ومرتيه هو وحي ويديني احنا ما هي يا إيقاك حيني الصحابة دو كورنشري يعني عاو أدعي يا إيقاك قاضي tani haddaba walaalo waxaan isleeyahay anigu waa arrin horta lagu kala aragti duwan yahay qofka miskiinka in la joojuubo in la ciriiri la geliyo in la bahdilo waa arrin lagu kala aragti duwan yahay islaamku runtii wuu fogeeyey oo de quraanka waad ku aragtay suuratu duha aynu wada dhigano wa amma as-sa'ila fala tanhar qofka wax weydiisanaya toogsanaya gacanta yar yani ha gulgulin ha dhibin بل اسكدا مركا دركتو ادغو اسغو دعيسو الحمد لله دي وواحد هذا الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا يعني عليه ادك كاشرفي ادك كان كادغين بوسكيسا كو غينين الحمد لله دي arrintan hadaba gaar ahaan in masaajida dadka noocaasa lagu kala jiido ama seenaho laga saaro aragti ahaan waa arrin oo laga yaabo hadba gudida masjidka joogta inay wax uunu arkeen ma nadaafada masjidka ma dadkan tukanaya tashwiish iyo inaan buuq lagu furin oo qofku si xasiloon u tukada waxa jecel oo dadkii oo laba kala garanayn hadda baashi waxay noqotay dadka qaar ba u soo shaqo tagay oo shaqo ka dhigtayba qofkii waxa laga yaabaa idan waxay noqotay maxaa la oran jiray guulayseeda kala garamaynay yani kii baahna iyo kii kalaba in la kala garanayn marka anigu waxaan isleeyahay arrintaasi waa imtixaan malaha waxay u baahan tahay aniga laftaydu runtii xaqiiqatan arrintaasi marka qaar kood aad bay ii dhibtaa waliba dadka qaarkii markaan arko aad bay ii dhibtaa ama sida loola dhaqmayo iyo marka anigu waxaan isleeyahay malaha arrinta iyadii waxay ku haboon tahay in si gaar ah bal dadka masaajida kolba kuma jiro wadaadada masaajida gacanta ku haya hadda bal qoliyaha masaajida ku jira laftooda in arrinta loola noqdo dib looga soo wareysto laakiin haddii aan malaha wanaagsan ka eego kala garasho la'aantan idin kala garamaynay guulaystadii iyo maxaan ku raahdaa dadkan on malaha tukanaya ee qofkan musalliga ee masjidka soo aaday in la tashwiishin oo la sahwiin umba ugu badan ayaan anigu isleeyahay aragti ahaan ama ka diin ahaan ismalihi yani wax oranaya nas oo oranaya qofkani masjidka yaanu waxba ka baryin oo yaan waxba laga diidin waa jira islaamku yani waxyaabaha qaar kood la diiday masjidka in wax laga yaboohiyo kale oo alaab luntay la yiraahdo war alaabtaas xoolahaas naga lumay yaa arkay ama war xoolahaas lumay inuu haynaayo soo doonto oo wax noocaas oo kala waa la diiday oo islaamku waxyaabaha diiday ba kamid yahay laakiin toogsiga wax isleeyahay waa arrimaha noocaas oo bay la mid tahay ayaan isleeyahay anigu masaajid waxaa jiri jirtay horta quraanka sidaan kusoo baranay dugsi ama darsi ha ahaado ama arda ha ahaado dab la shitay habeenkii oo loox wax lagu dhigto sax arrintii waxaan u malaynayaa deegaankeena hadda way kasii guuraysaa maxaa ugu can baad is leedahay nimankii wadaadada hadda de aan kuu sheegaya waa horena mar baa jirta xilligii horena wadaado soo xarooday mar jirta oo madarasooyinkii nooca ahaa xoogaa loo yar nisbeeyo inay lugta mariyeen
idinkuna hadda waxaan malayn waxaa laydin nisbaynaya inaad tasiir raaciseen nimankiina nabadi keenta yahay ood daara waaweyn iyo guryo ku raysteen macallimiintii meelaha madaarista yararka qur-aanka hayn jirtay ee looxda wax ku dhigi jirtay sixir barar badan baa ku dhacay nimankaasi hawsheeda arrintaa waa laydin nisbaynayaa seed wax yeesheen jazaak allah khayr allah yibaarak fiik xaaji caliow sida aad la socoto diintu markii ay soo degaysay ee qoraalkeeda la bilaabay waxaa wax lagu qori jiray lafaha dhirta hargaha saanta xoolaha baa wax lagu qori jiray marxalad baa la soo maray mar dambe waxaa la soo gaadhay loox in wax lagu qoro hadda waxaa looga gudbay yacni dadka looxa wax ku dhigayay kamay ahayn yacni lexjeclo ama si gaara inay halka la-aanshabay ahayd waxaa leelahay hadda buug iyo qalin ka fudud labadiiba ka fudud oo qofkii wax loogu dhigo halkii geed intii la tago geed la soo qori lahaa qalin iyo tawaad dharkii ku daadanayo ilmihii wasakhayn lahaa qofkii wax loogu dhigi lahaa waxaa la helay qalin iyo buug ilmihii intii si ka fudud yani yani qarash ka fududna loogu samayn karo nadaafad ahaanna uga fiican ayaa la helay waa marxalad la marayo waxaan isleeyahay taa lafti hadda waa laga sii socdaayo waxaa iman doona xilli ilmihii qofka gebigiisaba in la dhahda computerka farta saarsaaro baa hadda la sii maraya marxaladana waa laga sii gudbaya marka waxaan isleeyahay cali riixid maahe waa nolosha lafteeda iyo casriyeynteeda ayay ka mid tahay wadaadadii halkaa joogayna waxaan isleeyahay iyaga laftoodu way la mungiuroon oo waxbarashada noocan bay raaceen iyaga laftoodu kama marna hadda kuwa aad sheegayso oo in uun la qurxiyo waxyaabaha kale sheekh cali oo allah ku barakeeyay nagu dhiiriyay waxa kamid ah magacaagi baan walba bedelayaa abwaan cali badan dhahay ha ma caligaas ay ugu filan kaliya hadhow waxa la oran doonaa ninku xaajigan uu sheegay waa sidee caliga kaliya ugu khayr allah ku siiyo waxyaabaha waxa kamid ah iyada lafteedu runtii tilmaanta togan mudan ilmihii iskuulka dhiganayay labis gaar baa loo soo iibiyaa shandad baa loo iibiyaa nusu saaca break time baa la siiyaa oo nusu saaca la siiyaa ama weysaha loogu shubo ama caagada loogu xareeyo ama ha la siiyo maxaan ku dhahdaa cash ba ha la siiye markuu iskuulku taga kursi fiican buu ku fadhiistaa taa dhigeeda inankii qur-aanka aadayay ama inantii qur-aanka aadaysay dariis looma xidho gaara shandad gaara lama siiyo kitaab baa galyar loogu ridaa hadhow toole markay tagto ama darin bay ku fadhiisataa ama waxay ku fadhiisataa maxaan ku dhahdaa uu ku fadhiistaa daasada caana booraha ama dhagax tii si looga gudbo taasi waxay keentay liidasho in loo arko qofkii diinta islaamka baranayay walidaalka u fiirso Soomaalideenu markay ka hadlaysay cajiibka waxyaabaha keenan maxaa kamid ah waxay ku oranayaan nin baa la weydiiyay waxa war carruur maxaad rag maxaad dhashay markaasuu yiri waxaan dhalay 5 nin iyo mid xerow ah 5 nin iyo mid xerow baan dhalay mid baa wuxuu yiri laba malaha nin wadaadii iyo nin kale oo islaynaya buu arko markaasuu yiri war wadaadka iyo ninka kala qabta kullu dalka maxay ahayd falsafad laynaga dhaadhiciyay qofku haduu xagga diinta iyo dhaqankeeda u yara bato waa qof xogaa ma garanaysaa yar liito damay si tii meesha aanu uga saarno ayaa waxaan u sameynay dariis waxaan u sameynay shandad waxaan u xambaarnay buugaag waxaan yani marka waxaan isleeyahay marka wax badan ayaanu soo kordhinay oo qiimo fiican ah oo wanaagsan ayaanu keenay baan isleeyahay anigu haddii maanta nabi maxamed subanayni alayhi salaam allahumma salli wa sallim sallallahu alayhi wa sallam hadduu maanta noolaan lahaa oo dib u soo dhalan lahaa oo noolaan lahaa maanta uu joogi lahaa dadka Soomaaliyeed maxaad isleedahay uu kala hadli lahaa oo gooniba ugu sheegi lahaa oran lahaa Allahu akbar cali waxaan anigu runtii isleeyahay intaan halkaaba la gaarin waxaan ka wadaa haddii uu maanta joogi lahaa muxuu oran lahaa haddii maanta nabi maxamed alayhi salaam uu maanta noolaan lahaa muxuu kula talin lahaa dadkan Soomaaliyeed ama uu oran lahaa maanta Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi caliyow waxa jirta xilli geeridii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay sii dhaweyd ayaa mid saxaabadii kamid ah ayaa wuxuu arkay dadkii muslimiinta ahaa oo waliba qaarkood saxaabadii yihiin oo tukanaya markaasaa wuxuu yiri wax hadal la yaab loo cajiib ah hadduu nabi maxamed maanta noolaan lahaa buu oo salaadiina uu arki lahaa muu garteen ilaa muuqaalka mooyaane wax kale ka muu garteen buu
يعني inaad foorsanaysaan inaad istaagaysaan inaad gacmaha sidan oranaysaan intaan buu ka garan lahaaye wax kale kama garteen buuri salaadiinaba salaadiina bal hadda u fiirso nabi maxamed sal sallam sanado yar oo kooban baa laga joogaa geeridiisi marka iyada maxaad u malaynaysaa maanta oo laga joogo 1400 iyo googo laga joogo 1400 iyo googo laga joogo shalay maxaad isleedahay 48 shalay bay buuxsantay maxaad u malaynaysaa waxaan ku leeyahay walaal runtii haddii waxaan isleeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maanta uu noolaan lahaa oo la yidhaahdo soomaalida maxaad kula talin lahayd aniga waxaan isleeyahay 3 arrimood buu maanta kula talin lahaa ugu muhiimsan kow waxaan isleeyahay dadka wuxuu kula talin lahaa barta cilmiga shareecada iyo aqoontiisa barta laba waxaad barataan runta iyo sidqiga iyo ammaanada in la oofiyo waxaan isleeyahay wuxuu kaloo kula talin lahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam shay aan dhammaanteen ba inagula talinayo weliba soomaalidana ku yar dhammaanteena inagu yar oo ah ifaa'ul ahd ballanka in la oofiyo ballamaha in la oofiyo arrintaasi gaar ahaan dadkeena waa ka maqanta mawaacidda in la oofiyo qof baa caliga wuxuu kula ballamayaa wuxuu ku oranayaa berri 10 subaxnimo aynu isu nimaadno 10 barkii buu ku imanayaa 10 buu ku imanayaa wuxuu ku imanayaa doono 11 buu ku imanayaa haddii aad iska tagto oo danaysato wuu kula soo hadlayaa wuxuu hebel waan ku waayay ama waynu is weynaayay walaal ama meel buu kaaga soo baxaya walaal shalay waynu is weynaa oo aan ka xumahay war ismaynu waayinay ataa ii jaray ee cudur daaro xataa soori ma yaqaan qofkii ma oranayo walaal waan khaldamay waan ceeboobay u fiirso waxyaabaha ugu khatarsanna ee islaamnimada tashwiishka iyo suura xumada geliyana waxa kamid ah ballan xumada bal iska daayay nabiga sallallahu alayhi wasallam calaamadaha munaafiqnimada markuu tirinayay qayb kamid uu ku daray marka waxaan isleeyahay waa arrimaha uu nabi maxamed maanta soomaalida kala hadli lahaa waa qayb kamid ah waxaa kaloo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam soomaalida kala talin lahaa waxaanaynu maantaba ka hadlaynay ah adeegsi xumada aqoon xumada shayga wanaagsan ee shay laga yaabo inuu weji fiican lahaan lahaa wejigiisii wanaagsanaa inaadan adeegsan xaggii side effectiga inaad ka adeegsato xaggii waxyeelada bahalkaynu sidayna ku imtixaamanahay baa ka mid ah khayr oo dhan baa ka buuxa shar oo dhanna waa ka buuxa inta sharkaynu ka naqaana inta khayrka kama naqaano marka taana waxaan isleeyahay uu kala talin lahaa maanta ma isleedahay ummaddu waxay caydh ka tahay xagga dhaqaalaha mise xagga barashada diinta midkay maanta ummaddu ay caydh ka tahay labada jamiil allah ku barkeeyo waxaan leeyahay anigu aragti ahaan horta qofka bini aadamkii inuu adduunyo beelo oo uu caydh noqdaa waa qayb runtii xanuun badan waana waxyaabaha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka magangeli jiray ilaahay faqriga baahida faqriga munsiga oo waxyaaba uu ka magangeli jiray sida oo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay fa wallahi ma akhsha al-faqra alaykum walakin akhafu alaykum an tubsata alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha وتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم إذن كبقي مايو فقري إيا باهي إذن بابي إسا لكن وحان كبقيا إن الدنيا دا ليدين فيديو سيدي أمديه يقول ري لو فيديو لو بلاريي الدوك اللي هلاقي دبنا أي ترتمين أو ترتنتان الدنيا دي أوكلا ديرايسان سيدي أوكلا ديرينيين دبنا تكون هلاك سنتان سيدي أهلاك سبين إذا waxaan isleeyahay faqrigu wuu dhib badan yahay laakiin ismalihi faqri ku haleela ayaa mushkiladiisu tahay laakiin anigu waxaan isleeyahay in diinta aad faqiir ka noqoto oo aad diintaada marti cid kale uga noqoto ayaa ka dhib badan maanta adduunyada idan waxaan isleeyahay anigu diinta faqriga diinta kaagaga dhacaa kaasaa labada dhib badan oo inkaar qaba ah ka maanta ina halaagay ee ina baabiyeyna ah qofku inuu diintiisa cid kala marti uga yahay cid kale inuu daba fadhiyo inuu u arko inay diintii iyo dawladdii kala midba tahay oo kala soocan tahay
oo wadaadkiina halkaa uu joogo bal la yidhaahdo wadaado adigu wadaad baa tahay maxaa siyaasadda ku dhex geliyey caliyo waxaa la yaab leh waxaad aragtaa mararka qaarkood nimaan dhakhtar ahayni hadduu ka hadlo caafimaadka wax ka sheego nimaan injineer ahayni hadduu biyogelinta iyo dhismaha guriga iyo cabirka guriga ka hadlo in la weydiiyo adigu xaggaad ku baratay xaggaad ku taqaanaa waxaan yaa kuu diray shaqadaadiiba maahee laakiin minaan diinta weligiiba baran hadduu diin ka hadlo oo la yidhaahdo yaa ku baray diintan adigu xaggaad ka soo baratay cilmigan xaggaad ka soo qaadatay inuu ku yidhaahdo dee waan ku dhashay war waad u dhalatay diin laguma barto waa loo dhididaa waa loo dhaxaayo waqti badan baa lagu bixiyaa waa loo sabraa waa loo gaajoodaa xaggaad ku aragtay waddadeediiba maad gaadhini haddana maca daalika uu markuu doono ka go-aan gaadho wuxuu wallahi niyo sheegaasi sax maaha waradar yaa ku baray go-aanka dhawidaa adiga ayaa kuu diray shaqadaadiiba maahe adigu waxaad ahayd ma garanaysaa hawlo kale aad lahayd oo waxaad ku fiicnayd dabkhiga iyo cunto karinta iyo waxaad ku yani meelo kale tuliinka dharka iyo hawlo kale aad ku fiicnayde kumaad fiicnayn hawshan marka waxaan isleeyahay anigu faqriga diinta kaagaga dhaca ayaa ka xun faqriga adduunyada jiha kale marka la eego diintu dhaqaale la-aan ma shaqayn iyada lafteeda ma socon karto marka iyada lafteeda alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yani adduunyadanaad ha ilaawin aakhiradaadana ha ilaawin labadiiba inaad isku maashood isku wado waayo lama wadi karo dhaqaale la-aan naftigeedu waa nothing diintu dhaqaale la-aan ma socon karto haddii aad arrin ka bedel lahayd bulshada soomaaliyeed maanta maxay noqon lahayd jawaabta kooban baan ku jawaabayaa haddii aan bulshada soomaaliyeed maanta hal arin ka bedeli lahaa waxaan ka bedeli lahaa waxa loo yaqaano qadiyadda qabyaaladda qabiilka iyo qoysnimada waa maxaa la odhan jiray caliyow talomiyigii miyaad igaga dambeysay bahalkan meeshan yar waxaraha marka ay yaryar yihiin qabka qabkaa yar ay ku jiraan edagaa yar ay ku xaraysan yihiin ayaan odhan lahaa qabyaaladdu waa qab halkaasay ku jirtaa ha laga baxo qofka waa ina hebel iyo ilmaadeer baanu nahay ha ula soconin ee waxaad ula socotaa isku aragti baanu nahay isku mabda' baanu nahay waxaasaa naga dhexeeya laakiin isku reer baanu nahay iyo waa xeradayadii ha ula soconin anuu maanta markaa Soomaali waxaan ka bedeli lahaa haddii aan xornayo qabyaaladda arrinta qabyaaladda Soomaalida maanta siday u saameysay sheekhu qabyaaladda Soomaalidu waxay siday u saameysay waan aragnay diintu maxay ka qabtaa yani xagee ka joogtaa wallaahi kaliya waxaan kugu soo koobayaa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin maalmaha ka mid ah baa nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaal ka soo noqday oo saxaabadu ay culays dareemayaan oo dagaal laga soo noqday ayaa iyaga oo de bani aadamku Soomaalidu waxay tiraahdaa carab iyo laba daan baa isugu dhawo way isqaniinaan way isqoomaan laba saxaabi ayaa muran yara dhex maray waxoogaa khilaafi dabeedna way isu yaraa jaafa jirqeeno way isira gacan qaadeen markaa nini wuxuu ahaa ansaari midna wuxuu ahaa muhaajir waa saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo raacday maka ee xagga ka timi ansaartuna waa nimankii madiina joogay ee magan geliyay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii markaa timid dabeedna labadii nin waxoogaa dee waa laga yaaba dadka biniaadamku dee la isku Itaaliya isku awood maahe waa yara kala awood bateen kii laga awood batay ee waxoogaa dacfiga yara dareemay ayaa wuxuu u dhawaaqay yaa lal ansaar tallaayay ansaaray buuri kii kalena wuxuu yidhi yaa lal muhaajiriin tallaayay muhaajiriinay balada u fiirso muhaajiriin waxaa laga yaabaa intaasoo qabaa'il bay ka koobnaayeen ansaarna dee qabaa'il kala duwan bay ahaayeen laba qabiil baa ugu xoog weynaadaani magacii ay ku kala dhawaaqeen ayaa wuxuu kiciyey dajo iyo xamaasad ah in raggii siro eegaan oo waxogaa qoladana ay isidhaahdaan ansaartii ay isidhaahdaan war raggii aad soo dhaweyseen ee guryahoodina aad keenteen ee aad maatadiinii iyo ka dhigta yani ku dhex xanaanayseen sidee bay maanta
nebigu sala allahu calayhi wasalam allahuma salli ala allahu akbar wuxuu yidhi dhegaysta maanoo dhexdiina joogaad saa maanta leedihiin dacuuha fa inahaa muntina war iskaga taga oo iska daaya way uraysaa yani waa bakti shaygu markuu bakti noqdo ama baarixi noqdo ee meel la dhigo ayuu soo uraayoo siifad sameeya qabyaaladii dacuuha fa inahaa muntina innaguna maanta waxaynu ka dhigannay shaarka ugu cajiibsan ugu quruxda badan ee qof bini aadam xidho qabyaaladii waana ta aad aragtay maanta halka ayayna la marayso waa ta aad aragtay caliyow qofka bini aadamka markuu ilaahay barwaaqo ku siiyo ee ilaahay wax wanaagsan ku siiyo maxaa waajibahoo ku saaran inaad samayso inaad tidhahdo maxay alxamdulilah ilahay baa wax wanaagsan i siiyey maalan ba tusaale ahaan abaaraa dhacaya waa qisooyinka iigu naxdinta badan ee igu xanuunka badan abaaraa dhacaya laba reer baa isku dhacaya waa abaartii joogta markaasuu ohanaya waryaa hoy odaygii reerka odhanaya bal dau fiirso waa odaygii samataliska la doonay noqdo ayaa wuxuu odhanaya waryaa dhegaysta roobku haynoo de'e inaga daaya hadda hawsha inaga damiya roobku haynoo do colaad buu dib u dhiganayaa markaasuu weliba de muxuu u dhiganaya roobku haynoo do yacni barwaaqadii iyo xamdigii ilaahay ina siiyey markaasaynu isu baxaynaa oo dhiig daadinayna oo dhiig daadinaynaa waa halka ay inaga gaadhay ee qabyaaladii inaga gaadhay qabyaaladii waxay inaga gaadhay cali oo wax la yaab leh مثلا ما تصالها نبى وزيرة وزيركي بقى ده بني آدم كو قفك بني آدم كده كي أما ده نبى بحيل حياة مدحوين ده وزير ده ماير ده برصاب واحد دون طبعا ده نبى حيل حياة نكي طبعا ده قف من نقول هاي قيس بو كدش نكي لنا وحلون سبين إياه قيس كريهبل كسي درنا إسقلتي سوي سوي قانا قيس كه ninkii qoyska ah ninkii qoyska ah yani shaqadan binu qoyska u hayo shaqada binu qoyska u hayo dabeedna shaqadiiba waxay ku xidhantahay shaqo qoys halkii shaqo qaran uu qaban lahaa ninkii siyaasiga ahaa ee xilkan hayay waxay noqotay shaqadii waa qabyaaladu halkayna la marayso shaqadii bayna noqotay shaqo qabiil oo maanta adigoo cali ah haddaad aniga ninka wasiirka ee isku xaafadda aan nahay aad wax uga baahato inaadan adiga oo cali oo qoys kale aad toos u aadine inaad anigii isoo galagalaysato ta warheed hebelow niyo bal ninkan idinka ma garanaysaa isku jifa ahaaye bal niyo hawl baa iga yara gashay kaalayo xilkii iyo adeegii qaran waxaa ka weynaaday mas-uuliyaddii kale waxaa ka sii daran soomaali markay mahmahaysa waxyaabahay tiri fiqi ama faqiih tolkii kama janno taga bay tiri يعني مرة بتولني مدي يدينتي بحاتها تولني مدي بوين باللي وهالك أي وح إنا جمريان مركا أنا جوحان إسلاي هاي وعذر وفيروس شركة نكون مكان أو إنا جلي أو إنا حلي ونباهن إنا الصومالي كقرطو كداوودو حنو كايسلا diiniyan markaan eegno rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam meeshuu dhigay waad noo sheegtay inuu yidhi way uraysaa iskaga arar ma lagu naar galaa mase lagu janno tagaa طبعا qabyaaladu ha mararka qaarkood hadba waa sida waa haddii aad weelka qof ku disho waad ku naar geli nacam waa sida hadba waa sida aad u adeegsato qabyaaladu oo waxaa laga yaabaa asaalatan dee qabiilku waa nasab waxaana kala jira waxa la yidhaahdo qabyaalad iyo qabiil qabiilku waa wax diinta ka mid ah oo dee diinteenna ka mid ah oo waa tacaaruf baa laynoogu sameeyey يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا أي قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن تسكو قراتانو نصبكي إيو هايبتي إيو قفكا سهلكاسو كسو تشيدا إيو لغو صحو لكن قفكو هدو أذيك سدو وشي وحكو حسدو وحكو دلو كو أغار صدو يعني مرحلة بيبقى حتى جارسيسا قفك بني آدم كأ إن أركو متعالي إنه يعني كغسر ريو أديك أهبل إنه كغسر ريو قفك إساقي هنا صباحان أو كغسر ريو إنه أركو آمن بقى إذا أنا خطر بكينيس
على الأقل waxa la oran karaa waa dunuubta waaweyn baa la oran karaa qofku inuu aamino qofkan kale ee muslimka isagoo la muslima inuu xataa qabiil ahaan kaga nasab sareeyo nin baa laga hayay nin buu show ku caayay wariyaa hebelow adeer anigoo laangaaba maxaad aniga ila hadlaysaa buu moogtay markaasuu intuu qosle baa wuxuu yiri laangaab waa keena jannada laga waayo midkeena jannada laga waayaa laangaaba buu waa jawaab saxa waa sax halka lagu kala bixi doonaa waa halka sababtoo ah inna akramakum cinda allahi atqaakum karaama macnaheedu waa maxay waa sharaf waa maamuus qofka sharafta lihi kaasaa sharafa laakiin adduunyada qoysnimo iyo qabiilnimo meel wax ma gaarsiiyaan dr maxamuudow hadduu ilaahayna gaarsiiyo oo ilaahay naftii inoo daayo 20 sano kadib sidee ayaad jeclaan lahayd in loo xuso jaamacadda islaamiga ee jigjiga ما شاء الله جزاك الله خير والله أنا وحان إسلايا هاي سنة جورة اللباتناد الجامعة الإسلامية لو دقيا وحان تعلان لها إن النقطة وحانا هذا تلمامي كرينين أو مرمرك قاركود عليو أديكو تشوغو أديكو إسكاسو عنايا ما مقاشي هي بليسوغو سو تشيدو الرياضة هي mararka qaarkood ma kugu dhacdaa adigoo meel cidla hadda soo jeedo life inaad riyooto yani aniga sida aan ku riyoonayo waxaan isleeyahay 20 sanadood kadib aljaamica alislaamiya waxaa lagu xusi doonaa magac la oran doono haddaan ilaahay jaamacadda noo soo dirin jiritaanka iyaga shaki geli lahaa dadnimadeeda shaki geli lahayd aniga waxaan isleeyahay 20 sanadood kadib aljaamica alislaamiya qofka gaadha wuxuu samayn doonaa taalo xusuus u ah oo lagu xasuusto tiimkii maskaxdii ka dambeysay jaamacadda iyada ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda u keenay aanu horseed ugu noqonnay la soco oo waa awal jaamica islaamiya oo laga furo magaalada jigjiga laakiin kilalka way ka furan tahay mid kale oo waataan ku socdo ma aha deegaankeenna waxaa ka horeysay jaamacadda raaso oo runtii aan ku faanayo Ethiopia oo dhanba kilalka kalima Ethiopia oo dhanba waa jaamacaddii ugu horeysay leh islaamic ah waliba shacabku dhisteen shacabku ay fureen ma sha Allah marka aljaamica alislaamiya waa jaamacaddii ummadda waa jaamacaddii deegaanka waa jaamacadda ku taala caasimadda mustaqbalkana waxaa 20 sanadood kadib waxay noqon doontaa xasuus gaara oo dikrayaadka xuska waaweyn waxyaabaha lagu faano ayay geli doontaa baan isleeyahay ma isku xidhantii jaamacadda Raas University طبعا islaamiga iyo tan waa isku xidhan Soomaaliya iyada oo jaamacadaha islaamiga ee Ethiopia ka furan oo dhani ay xiriir leeyihiin oo isku xidhan yihiin si gaara jaamacadda waana booqday طبعا anigu waan ka qayb galay xafladeedii furitaanka waan tagay waan isku xidhannahay connection boardkeeda jaamacadda halkan aan ku casuumay anigu oo martiqaad aniga iyo tiimka boardka wada socnaa jaamacadda aan martiqaad ugu fidinay sidoo kale iyaguna noo fidiyeen oo fil mustaqbal aan sugayno طبعا ummadaan u wada adeegayna laba jaamacadood oo islaamik ah oo dani ka wada dhaxayso oo ummadda u wada khidmaynaya mustaqbalkana aan rajaynayo waliba insha Allah taala in aanu qaban doono tababaro iyo kulamo iyo discussionno Dr. Maxamuudow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilaahay kuma daraa dadka waxaa jirta dhalinyarada waxaan galaynaa su'aalaha Allahumma aamin sheekadayna caadiga magaalada okay dadku markay socdaan dhalinyaro waxaa jirta ama dadka qaarkii waxaa jira keligii isla hadla oo sheekaysta de khayr ku sheekaysayayo shar ku sheekaysaya asiga qulus ilaahay laakiin dad waxaa jira mashquulsan oo ka sheekeeya waxaana mustaqbalkii inaysaa sidan samaynaysaa sidan arrimaha dambi baa ka imanaya waliba waa ku jira dadka positive ka badan baa ku jira anigu keligii safra markaan anigu waxaan jecelahay markaan safraya meel aadayo inaan dad israacani inaan keligay safro waa suuqay mid dabcan keligay inaan safraa baan ka jecelahay cali ahaan markaan ka soo qaado si aan keligay isaga sheekayso علي ونبا وحي حسي شكلها شكلها يابلا نبا وحو أركي نين سلاش كيسنا يولي مع ذلك هذا هذا الكي قرق قاضية طبعا نوحي هذا سومالي دكو فضول مو يعني way de wuxuu maqlay isagoo lagu sheekaynayo oo meelaha wariyaha ninkii hebel magar kaysa badanaba wallahi wuu isla hadlay taana intuu yimi baa wuxuu yiri wareede nin waliba waa isla hadlaya laakiin anigu waan ismaqashiya buu nin waliba waa isla hadlaya laakiin anigu waan ismaqashiya si caadi oo soo sheekaysta macna ana sheekada ismaqashiya xaj cali waxa jirta
ilaahay subxaana wa tacaala naxariista uu inoo naxariista bay ka mid tahay qofka bini aadamka ah khiyaali baa kusoo dhaca waxyaabo badan baa kusoo dhaca marmarka qaarkood xumaan iyo shar baa kugu soo dhaca marmarka qaarkoodna wanaag iyo wax qurux badan ayaa kugu soo dhaca marmarka qaarkood waxaa kugu soo dhaca wax haddaad samayso ood qaban lahayd ajar badan lagaaga qorayo maalan ma tusaale ahaan waad soo baxday cali oo gurigaagaad ka soo baxday waxaad go'aansatay socodkii aad soo socotay baad iskula sheekaysatay warniyahow maanta ninkii hebel la odhan jiray u soo naseexe oo khalad buu sameeyey u soo naseexe waad iskula sheekaysanaysaa la soco ficlan waxbaa kaa soo dhexgalay oo ninkii maad qabanin shaqadii maad qaban ama se naho taa cagsigeeda waxaa siri ninkii hebel niyo ninkaasi si xun buu kula dhaqmaya wallaahi waa inaad magaranaysaa waa inaad ninkaa iska soo celisaa ama u gacan qaad ama hadal xunba soo dhaho waa maad qabanin sheekadii la soco oo waa laba arrimood oo midna positive yahay midna negative yahay sax weeye warada midna salbi yahay midna iijaabi yahay labadii arrimood waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso warniyo wixii talow aad samaysay arrin xun baad ku fikirtee talow muxuu noqonayaa waxaan kuu sheegayaa waxaa jirtaa aayad ka mid a suurat albaqara xaggeeda dhammaadkeeda ayaa waxay markay soo degtay ayaa saxaabadii aad bay u dhibtay aayaddu waxay ka hadlaysaa yacni wax alliyaala waxa aad samaysaan ama yacni fahamka guud ee hadda laga qaadanayo yacni fikirka aad ku fikirtaan ama sida yacni waa la idin qabanayaayo khatar baad gelaysaan bay ka hadlaysaa dabeedna saxaabadii iyagoo yaacayay nabiga u yimaadeen sala allahu alayh wasalam waxay ku dhahay rasuulka ilaahayow yaa arrintaa ka badbaadi karaya arrintaa yaa ka badbaadi karaya iyada in laysu ciqaabo yaa ka badbaadi karaya marka aayadda suuradda dhammaadkeeda ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey iyadoo lagu daweynayo waxa aad samayso ee ficilkaad samayso uun hadduu weliba xumaan yahay in laguu qorayo oo markaa laguu qabanayo oo ciqaabtiisa aad helaysa ama lagaa cafiya ama laguu daaye laakiin wixii aad niyada iska tidhaahdo inaan laguu qabanayn marka caliow haddii aad isla sheekaysato oo waxyaaba khariban aad iskula sheekaysato laakiin wixii aanad fulinin idinka ilaahay insha allahu tacaala shareecadu waa inaga dulqaaday oo laguu qaban maayo baynamaa la soco mararka qaarkood waxaa jira waxyaaba caqadi ah oo caqiidada la xidhiidha oo diintaada caqiidadaada waxaad islaamka ku soo gashayba la xidhiidha taasoo kale culimmadu way ka hadlaanoo wax khatara ayay qofka dhexalsiin kartaa ayay gaadhsiin kartaa laakiin waxa aad iskula sheekaysatay ee afcaashaa xunxuniha idamka ilaahay insha allahu tacaala ilaahay waa inaga dulqaaday oo waxa aynu mukallafka ku nahay waa ficilkaynu samayno وبالعكس نحريست الله سبحانه وتعالى waxaa laga yaabaa inaad ficil wanaagsan istiraahada qabo dabadna ay si uun kugu suurta gali weydo oo aadan qaban dabadna ajar baa lagaaga qoro waa naxariista ilaahay subxaana watacaala inala jecel yahay iyo raxmadiisa inala jecel yahay inaynu mar walba xagga islaax iyo wanaaga u dhowaano marka insha allahu tacaala sheekadeenaas sheekh maxamudow aad baad u mahadsan tahay hal su-aal oo kaftana aan ku soo xidhay barnaamijka ugu hadda waana dhab la qaboojiyey aniga cali ah jaamacadda haddaan rabo inaan ku soo biiro oo aan ma documenti baad igu xidhaysaan haddaan rabo inaan jaamacadda aan imaado oo wax ka barto cali waxaa jirta caalamka waxyaaba la sheego oo la yidhaahdo qofkaasi wuxuu qaatay darajo cilmiya oo lagu sheego waxaa la yidhahdaa darajadaasi waa daraja fakhriya yacni waa martabad matalan qofkaasi wuxuu qaatay shahaada fakhriya matalan tusaalahaan qofku waxaa laga yaabaa dee intuu aqoon qaato aqoon fara badan barto oo dee nin waqti muddo badan soo shaqaynayay oo experience iyo khibrad fara badan nin ka mid a siyaasiyiintii Soomaaliyeed baa su'aal la weydiiyey waxa lagu yiri hebelow jaamacadeed ka soo baxdo markaasuu yiri waxaan ka soo baxay jaamacadda waa aragga galoolka hoostiisa ayaa laga sheegay siyaasiyiinta Soomaaliyeed mar laga warramayo marka waxaan leeyahay waxaa dhici karta qofku intuu yani khibrad aad u fara badan mashruuc waayo aragnimo ku noqdo oo khibraddu laba ay u qaybsantahay oo waxna waa wax aad baratay oo aqoon ku gaadhay waxna waa wax noloshu ku bartay noloshu anu qoladaas ka mid ah ولذلك marka qaarkood baa xataa waxa la yiraahdaa deegaanka lafteena Soomaalida waxay yiraahdaan cilmiga la dhigtay iyo cilmi dhagoodka badan bay yiraahdaan qofkani wax badan marka waxa jirta dadka qaarkood la siiyo darajo shahaadaad mesela waxa loo leeyahay hebel wuxuu qaatay doctora fakhriya
درجة فخرية بوغات marka waxaan isleeyahay dabcan jaamacaddu sida sharciga ee qaanuunka waxaa jirta nidaam la maro oo de documenti qofka lagu xidho oo wada uu maro oo qofkaas inuu shahaado haysto shahaadaas inuu yahay qof dugsi sare ka baxay dugsiga sare laba nooc midba uu noqon karaa kan maadiga ee 12aadka aynu niraahno uu noqon karaa kan macaahida shareecada ee 12aadka dugsiga sare lagaga bixiyay macaahida thanawiga ana uu noqon karaa labadaba waa waxyaabaha lagu galo jaamacadda islaamiga lagu galo maraaxil kala shuruud kala jirto qofka lagu xiro oo qofku inuu qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay waxaan jaamacadda u doonayna ay ka go'an tahay jaamacadda inuu dhigto oo qof bal waxaan tijaabi oo bal soo arago aanay ka ahayn ee waxani uu go'aan ka yahay sidoo kale waxaa jirta waxyaabaha runtii jaamacadda ay soo kordhisay oo aan halkan kaga faa'iideysanayo cali inta waa taqaanaa badanaaba de cilmiga xalaqaadka masaajidaynu ku baranaa culimadii caalamkiina wuxuu gelayaa caalam la isweydiiyo maanta qofku hadduu far dhaqaajinayo yani reference caddayn maxaad haysataa marjic waxaanaad leedahay waa sitaa anigu maanta waxaan ahay sheekh maxamuud sheekh xasan waxaan dhameeyey tafsiirka qur'aanka waan aqaanaa waan akhriyayaa wuxuu marayaa marxalad la yidhaahdo shahaado ma haysta xaggaad ka keentay document yani yaa ku baray raad raac yaa looga tixraacaya marka culimadeennii masaajidda joogtay ee culaamta ahayd ee cilmiga sida fiican loogu shubay waxaanu keenay mashruuca in qofkii imtixaan intii laga qaado mustawihiisii aqoomeed la qiimeeyo shahaado akaademik ah looga sameeyo hay-adaha ay khusaysay ee tacliinta caalamiyan waa wax jira taxdiidul mustawa baa la dhahdaa qofkan darajadiisa aqooneed iyo halkay taagantahay halkay marayso ayaa la eegaa caalamiyan qofkii marka in la qiimeeyo dabeedna halka uu gaadhay ee mustawihiisa aqoomeed uu gaadhsiiyo in la yidhahdo qofka shahaadadaasuu mudan yahay shahaadada ha la siiyo kadibna jaamacadda sidaa ha ku bilaabo waa waxaanu soo kordhinay oo jaamacaddeennu ay ugu horreysay dalkeennan aynu ku noolahay ee dalweynaha Ethiopia ama gaar ahaan deegaanka Soomaalida shahaadada marka idinku aad bixisaan waa aad bixin doontaan waa mid la mid ah jaamacadaha Addis Ababa University iyo Jigjiga University iyo Armaya University oo kale ay bixeen oo de caalamka oo dhan ka طبعا ها de ma jirto caalamiyan wadanka de lagama ogola jaamacadan ruqsad haysan ogolaansho inuu qofkani magac jaamacadeed sheegto qofan haysan de caalamiyan lama ogola deega wadanka lagama ogola marka jaamacadu jaamacadahaas la mid tahay ardayga ka soo baxay Haramaya University ardayga ka soo baxay Islamic University waa just same waa isku mid weeye waad maasan tahay Dr. Maxamuud barnaamijkan waxaan rajeynayaa insha Allah inuu soo noqon barnaamijka ugu dambeeyay laakiin waxaan rajeynayaa jaamacadda iyo global kasta insha Allah inay aad u wada shaqeeyaan oo arrimaha bulshada iyo wacyiga bulshada aynu ka wada shaqeyn hadduu ilaahay yiraahdo soo dhawow barnaamijkan maanta intaas uu noogu ekaanaya laakiin waan isku soo noqon doonaa hadduu ilaahay yiraahdo adiga iyo culimada kaleba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wixii dardaaran ana waan jecelahay inaad bulshada weliba aad xadiisyo ugu soo xidho insha Allah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مركو رسالة كان ردينيا والواجب إن كان رديا وحن أدقو فرح سنة هاي رنتي مرتقات كي عزومة دا ويفيدي بودكاست oo iyo ogolaaday maanta runtii wax badan oo isleeyahay bulshadu way tabaysay ama jaamacadaha noqoto ama arrimaha kale bulshada noqotay inaan wax ka iftiimiyay waxaan rajeynayaa insha Allah taala habkan iyo habka duwan insha Allah taala inaan bulshada ula wadaagi doono baahiyaha jira wax kamid ah caliyow dardaarankayga waxaan kusoo gabagabeynayaa anigoo aad idinku mahad celinaya cid kastoo i daawanaysana aan u mahad celinayo ina daawan doonta waxaan kusoo gabagabeynayaa dardaarankayga laba shay labada shay shayga koowaad wuxuu yahay shay aan aniga naftayda iyo naftiinaba la jecelahay oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi waxaan la jecelahay naftayda iyo naftiinaba inaynu noqono dad nazaahadu ku badan tahay xalaal miradka iyo waracnimadu ku badan tahay qofku inuu warac noqdo oo xalaal mirad noqdo hadday noqoto xagga hadalka hadday noqoto xagga maxaan ku raahdaa yani waxbarashada iyo aqoonta hadday noqoto heerka qofka bini aadamka iyo nolosha uu ka gaarayo hadday noqoto dhinaca dhaqaale abuurka qofku inuu warac noqdo u fiirso waxaa jira sheekh caliyow ama xaaji caliyow waxaa jira wax la yidhaahdo يعني mid kamid ah ragii waaweynaa ee salafka ahaa waliba taabiciintii alxasan albisri hadal uu yidhaahdo cajiib ah baa jira maquulo uu yidhaahdo aad u cajiiba waxa uu tilmaamaa salafku waxay uga tirkaanu yatrukuuna kathiiran min alxalaal makhaafata alwuquuci fi lxaraam salafku waxay ahaayeen kuwa ka taga wax fara badan oo xalaasha ka mid ah
inay ka fogaadaan oo iska daayaan iyagoo ka baqaya inay xaaraan ku dhacaan idan waxaan leeyahay waracnimada inaan ku dadaalo xalaal miradka inaan ku dadaalo nabiguna wuxuu leeyahay sal sallam dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuk iskaga tag waxaad ka shakido oo shaki iyo muhmal kaa galo iska daa waxaanad ka shakeynaad idan waxaan isleeyahay shubahaadka iyo shakiga iyo meela in la faarfaaro waracnimada ha lagu dadaasho xalaal miirashada ha lagu dadaalo qodobka kale ee ummadda aan leeyahay ama seenaho aan runtii jeclaan lahaa in aan ummadda kula taliyo waxa weeye war diintiina iyo aqoontiina marti cidna ha uga noqonina qof walba diinta waad baran kartaa diintu waa sahal way fududahay nabiga sallallahu alayhi wasallam lahaa waxaa la ila soo diray waxaa la ii soo diray waxaan sidaa diin fudud baan sidaa alxanafiyatu samxaa war diin fudud baan sitaaye barta cid walba waad baran kartaa diinta marti cidna ha uga noqonina iyaduna waa dardaaranka ugu dambeeya aan kusoo gabagabayn lahaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan marar badan kusoo noqon doono gole podcast iyada oo arrimaha iyo arrimo ka duwanba insha allahu tacaala aan ka hadli doono aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa wajazakum allahu khayran waaxsana ilaykum wabillahi towfiiq شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركل يا شيخ